nidaamka tacliimiga ee meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da'yarta ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya systemka waxbarasho ee waddanku leeyahay hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo morals tahay akhlaaqiyaad ethics waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalina markaad ilmaha ku darto uu ka soo baxo wuxuu noqonayaa waxaa jiray nin gabyaayo philosoph oo muslima oo Pakistan meelaha u dhashay India Pakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen Pakistan ahaa Muhammad Iqbal baa la yidhaahaa waa nin double doctorate double masterate waxaa sita Cambridge University meelaha macallin waa hore ka 1905 kiiba macallinka ahaa waa nin gabyaaya markaas wuxuu ka warramayay caalamul islaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay caalamul islaami ka dhigeen dadkii ay soo saartay waxay sameeynaysay wuxuu yidhi at-tacliimu هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكونها كما يشاء تعليم تبويري وآي سيدا لغو دلالي قفك بنا آدم كان نول هدونا لغو قابا يسيدي لدوني يعني بروفيسور كاسورة المامي education كوينو ياهي معي آي سيد قفك انتو دلالي وحرب ايساناي وردن كسو سارا قفك لي فحجران نقبيايو كالو هندية أكبر الإله الآباد اللي يراهضه marka wuxuu sawirayaa gabay sukhriya ah ayuu wuxuu ku sawirayaa in tacliinku wuxuu sameeyo markaas wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii Masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tagay maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii Masar maxaa ceeb raacday halku caruurta iyo fircoonkii yidhi reer banu Israa'iil wixii caruur ay dhalaan hal la yeesamahayn wuxuu leeyahay maxaa ceeb raacday intuu caruurta leynay muu kulliyada u furo buu yidhi iyagoo si kale u dhintuun bay u soo bixi lahaayeen yani iyagoo aan masri ahayn bay soo bixi lahaayeen kulliyaad baa kaga filaa buu leeyahay in uu laayo waxay leenahay tacliimka noocaasi dhalinyaradii martay ee wax ku baratay laba qaybood bay noqdeen qaybka guulaysatay ee sii socotay ilaa jaamacada gashay qaybtaasi in badanoo ka midi tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxa meel bay iska dhigeen waa nin western oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick money bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilaan qofkii xirfad male waxba male klaaska tobnaad ama koob iyo tobnaad ama laba iyo tobnaad buu dirqa kaga baxay meel kaloo uu socdaa ma jirto Soomaaliguna waa iska hanweeyo mushaharkan yar ee la qaataa kuma filla quick money buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdega ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka dabeetana mukhadar iyo ijraam criminals iyo xabsiyo ayay ku dambeeyeen qaybina musaxaadka caqliga bay ku dambeysay Soomaalidu waxay ka mid yihiin dad yaw ugu badan baan oran karaa ee xabsi degan marka loo eego nisbada ay wadanka ka yihiin iyo xabsiyada intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dad yaw aad ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yihiin walidaalika ba Soomaali badan oo iyagu istishaa jirta hadoo galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo Soomaaliya mad maqashay qof Soomaalida xabad lagu dhuftay inuu qof meel iska soo tuuray muslim ma maqlaysi laakiin xaqo waa caadi hadadu maqlaysaa idan waxay dadkoodii u qaybsameen daduna identity ka lubay intooda badan daayirtii dambe waa jira madad masaajida ku hadhay laakiin mostly ma aha haddaba Yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'iidnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weero kooban ka tilmaamo kow dhalinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu systemkaas ee dhalaaliyay waxbarasho ee la geliyay oo aanu jirin
system islaami oo wax baraya waayo system islaamiga ahi meel baa waxa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yar baa carruurtooda ka bixin karta saa daraaddeed dadka inta ugu badani public schoolska carruurtoodu dhigataa laakiin ma tagaan islamic schoolsku meesha uu ka jiro dee inta ugu badanna kama jiro ka labaad madaaristu waa sabti iyo axad xoogaa qur-aana la qaybsiiyaa qayb markuu qaybana markuu teenager gaarana qur-aankana uu iska daayaa waanu ka lumaa dee qulwalla aad qaybtayna waxba kaa rabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacaad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumayn qaliilan in yar baa badbaaday qoladii dhallinyarada u badnayd ee meelahan ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarrada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanaya inan yaroo 20 jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baa noo isku dhiibeenoo naaga cadcad oo iska qaawanaya waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarrada la xirtay intii la sii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkiiba halka dhexay kusii lumeen libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo talyaaniga iyo intaan dhexe iyada uu guban yahay oo waxbaanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba'een mostly waayo waxaa la geeyey dhul firidha dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badanoo ka midii way dumeen waa laga yaaba haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaa ee meesha tegey odaygii baa furay iyo islaantii baa la furayo waa wada maqasheenun baan u malay nin badanoo ka midii guryahaasina mostly waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yihi faqrigu idinku waxaa laga yaabaa in isleediin war lacag bay heleen bini aadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantay bulshaday la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkooda wuu ka hooseeyaa faqriga saasumaa lagu qiimeeyaa dee standardka meesha ka jira inaad adigu ka hooseyso dee faqiir baad matalan halka aad joogtaan waa uganda soo maaha standard baa jira standardka qofka ka hooseeya waxaynu odhanaynaa waa maxay waa faqiir halkoona standardka lifeka caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa foqora waa daasoo kuwan lacagta soo diriyo war waa $100 uu ka ururiya carruurta cashadoodii oo waxoogaa ka shaxaaday ama kan uu ka shaxaaday lacag ma jirto waa un qof weyn oo waxoogaagii la yidhi carruurta ama meelaha ku gee ama halkan ku gee intuu soo shaxaaday yararkii yidhi iska jooga aabba gurigiinna ayayaan u dirayaa iyo adeer baa baahan iyo kan baa baahan ku soo diray ee maaha dad hanti haysta weliba waxaa intaa u sii dheer xirfad ma leh xirfad farsamo ay ku shaqaystaan ma leh soomaalidu in general markaynu uga hadallo wax xirfadoo qofka soomaaligu leeyahay laba shay unbaa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari kaxeeyo waa labada xirfadood soomaalidu xirfad kale miyaa ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socsocday oo soomaalidaaba baacmishtarka u badan baan arkayay safarka xaggaa kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuno adag oo aan kuu ogolaanan inaad si fudud u soo gashaayo cashuur iyo kanina waa dul saaran yihin saa daraaddeed tijaaradda soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa weeye waa maqaaxi yaroo soomaaliya wax ka gada intan qaxoontiga iyaba qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yaroo dirac iyo googorad iibinaya iyo intii yareeda soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya marka ma aha baacmushtar u jeeda waddanka inuu wax ka iibsado saa awgeed xirfaddii baacmushtar ee soomaalidu lahayd yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana company weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin dee quantity iibinaya saa daraaddeed adigu haddaad soo gasho iskama kaa bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso maaha xirfadda labaad ee soomaaligu leeyahay waa darawalnimo
darawalnimadaasay qaarkood markay shaqadu bannaato yacnii markay waddanka shaqaala-aani ka dhacdo dee dadkan qaxootiga iyo waxan baa shaqooyinka ugu horreeya waayo hoos buu soo dhacdaa shaqadu markaa ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yaro furantay iyagu kuwa sare u yaro kacayaan markaasaa waxa kuu bannaanaanaya dhulxaadhkii iyo darawalkii iyo intaasaa bannaanaanaysa xataa dhulxaadhka certificate baa loo qaataa 6 bilood inaad ka baxdo intaad mafiqis ka qaadata xaadhi maysid waxay ku odhanayaan dhabarkaa ku xanuuni doonaa dhow baadna weydiinaysaa benshan iyo waxay waa inaad certificate-kaa seetaa system wax loo xaadhaa jira hataa haddaad tirahdaan dhulka masaxo ma suurtagalaha waa inaad systemkii dhulka loo masaxayay soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka soomaaliga xirfad ma leh dadkan soomaaliyada sii yaacaya qof xirfad le ma jiro soomaaliga xirfadiisu ama waa zero ama waa engineer iyo tabiib iyo grade-ka sare grade-ka sarena dee kuwoodii waddanka joogaa haystaa inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tahay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada dee muctaraf maaha marka horeba adiga waxaa lagugu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiya waxaan waxba kama jirayaan waa kii waddanka ku bartay iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sita waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa ilaa injineeradoo dhammi waxa laga yaabaa inayna taxi driverska ka mid yihiin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayey waa taxi driver waa bus driver waa lorry driver waa ka saawgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid soomaalida xaggaa joogta markaa waa foqoro dabaqada ugu hoosaysa bulshada ay la nool yihiin maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhibaa waxa u raacda qurunkay halkan kala tageen soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan sawgeed waxaa laga yaabaa wax kastoo isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la yidhaha ma reer hebel unbaana maamulaya meeshaa ka baxaante reer hebelka la soo gale waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale is yidhahdaan war nimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheega waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haysaa ilaa hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebela meesha haystaa marka dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo oo hadduu dad idiin yimaado isla dhexdhexaadii problemaa sheegtaan muuqan maayo waana isku dhegantiin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku inta badan dhibta isaga haysatuu arkaa markaasuu is idhahdaa dhibiba waatane haddaad ka baxda malaa noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tegay qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaggoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin dee waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal positive-kiina sheeg muxuu yahay positive-ka halkaa ka jira kow waxoogaagaa darawalladu soo direen ama oday afar caruura haysto afartuba dee faranji ka noqonayeen intii ay la yaryaraayeen wixii la yaraaye la siisiinayay uu ka xejiyey uu ka soo diray oo yidhi ama guri aan ugu dhisayaa meeshii ama ay hooyaday guri u dhisa ama baadiye ka keena islaantii iyo magaalada geeya ama xajka geeya intaasaa maqashaan soo maaha intaasoo sidii lagu keenay ilaahay un og yahay inay xaaraantii inay xalaal tahayna anigu aanan aada u hubin in badanoo ka mid xaaraan iyo xalaal waxay noqonayso aanan aada u hubin kaasi waa jira qadiyad labaad baa jiro oo ah gabadha Soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamiga bay muujisay xijaabka iyo marada weyn ay jiidayso marka dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun si haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaan intii xijaabka adkaysatay dee awal lama aqoon gabadh muslimad oo xijaabanidi waddanka kama jirin ta ugu badan baa khimaar yar ay madaxa ku xidhay iyo shaadhi surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidataa markay timi
masalada xijaabka bulshadii kale way ku dhiirigelisay marka waa laga yaabaa gabadh muslimad oo cad oo xijaaban aad aragto ama gabadh carbeed oo muslimad oo xijaaban ama gabadh yani dadkii kale oo maradan weyn ku soo dhiiraday oo xijaabkaasina hablaha Soomaaliyeed way faafiyeen waxa kale Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi oo hadduu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore uu dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhamaantood ay wada xufaadiyeen quraanka yaqaaniin cunsurka kaliya ee Soomaalidu diin ahaan ay rumaysantay in la qabtaana waa masaajidna waa dhiseen oo wadanadaasi dumarka Soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyay dhalinyarada Soomaaliyeed baa boqolka baan iyo $100 iyo $1,000 bixiyay bulshada Soomaaliyeed daara badan oo masaajida inkastoo aan ka cabsi qabo inay sidii kuwii Turkida iyo Pakistan tu dhisay oo kale inay noqdaan masaajida waxa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno Soomaaliya 70aadkii halkay joogtay 50 baaba ku tukanaya war odaydan carruurtoodii meeday magaalada ku jiraan dadka tukanaya waa maxay waa 50 oday pensionista Soomaalidu masaajida waa dhisaan midadka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay inay qalad tahay laakiin dadka kale ku amaanaanna way sameeyeen Soomaalidu